salaamullaahi calaykum waxaana wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada wararka Somali News 724 qodobada wararka aan idinku haynana waxaa kamid ah Masar iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah Sheekh Shariif oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarka uu ku tagay Jowhar dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay doorashooyinka Hirshabeelle iyo aqalka sare oo warqad kulul u diray baarlamaanka Somaliland maxay tahay dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka Soomaaliya madaxweyne qoorqoor oo sheegay in lala xisaabtamayo golaha wasiirada iyo nin loo qabtay weerarkii ka dhacay dalka Faransiiska qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena Somali News 724 ee ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay Somali News 724 subscribe saar share deh like-tana nagu dhiirigeli si aysan ku dhaafin wararka la xiriira siyaasadda dalka iyo tan dibadaba hagaag magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyada oo si weyn loogu soo dhaweeyay soo dhaweyn kadib Sheekh Shariif oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay muddo kadib inuu booqasho ku tago magaalada Jowhar laguna soo dhaweeyo ujeedka safarka uu ku tagay magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay hool ay in muddo ah soo wadeen oo ku saabsan xalinta tabasho la xiriirta arrimaha doorashooyinka dhanka kalena gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray waxa lagu sheegay in habraaca doorashooyinka kuraasta xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi ee loo yaqaan Somaliland loo raaco habraacii lagu galay doorashadii sanadkii 2016 qoraalkan oo la ogeysiyay madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Rooble madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa mar kale looga mahad celiyay xubno ka tirsan Somaliland sidoo kale gudoomiyaha Cabdi Xanshi ayaa sheegay in heshiiskii la xiriiray arrimaha doorashooyinka oo ay gaareen madaxweyne Farmaajo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir aysan ka qayb gelin siyaasiyiin metelaya gobolka waqooyi taas oo ahayd inay metelaad rasmi ah ku yeeshaan qoraalka gudoomiyaha aqalka sare oo laba bog ka kooban ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in heshiiskii doorashada uu ka mid ahaa in guddiga doorashada ee maamulada kuraasta gobolada waqooyi ay xukuumadda magacaawdo waxa uuna arrintaas ku tilmaamay mid wax u dhimayso hanaanka doorasho madax bannaan isla markaana iyaga magacaabi doona guddiga maamulaya doorashooyinka xildhibaanada golaha waqooyi dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in xubnaha golaha wasiirada Galmudug iyo hay'adaha kala duwan ee maamulkaas looga baahan yahay inay shaqooyinkooda si degdeg ah u qabsadaan sidoo kale Qoorqoor waxa uu sheegay in shuruucda kala duwan ee Galmudug ay jiraan wasaarado baarlamaanka u gudbiyay iyo kuwa aan weli u gudbin waxaana golaha baarlamaanka ee Galmudug oo ugu baaqay inay la xisaabtamaan golaha wasiirada Galmudug iyo hay'adaha kale ee maamulkaasi xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Qoorqoor sida ay u meelmariyeen shuruucyo kala duwan oo ay u soo gudbiyeen golaha wasiirada qaar ee Galmudug hadalkan ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu ka sheegay munaasabad uu ku saxiixay sharciyo dhowr ah oo ay horay u meelmariyeen xildhibaanada Galmudug dhanka kalena wasiiru dowlaha madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Macalin Khaliif ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Masar mudane Maxamed Naasir iyo safiir ku-xigeenka dowladda Jarmalka mudane Sasja Andres safiirada oo uga hambalyeeyay xilka dhawaan loo magacaabay wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane Xasan Macalin Khaliif ayaa u rajeeyay kamera dhalinta shaqooyinka qaar ee horyaala iyagoona tilmaamay sida ay uga go'an tahay in ay xoojiyaan
iskaashiga iyo wada shaqaynta laba geesoodka ah. Safiir ku-xigeenka dowladda Jarmalka ayaa soo bandhigay qorshaha dowladiisa ay ka taageerayso Soomaaliya iyo sida ay ugu faraxsan yihiin horumarka dib u kabashada iyo dowladnimada Soomaaliya oo haatan talaabo weyn loo qaaday. Sidoo kale danjiraha Masar ee Soomaaliya Mudane Maxamed Naasir oo dul istaagay sooyaalka wadajirka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah ayaa tilmaamay dadaalka ay ku bixiyaan ka gacansiinta Soomaaliya arrimaha waxbarashada oo aas-aas u ah horumarka iyo dowladnimada. dhankiisa wasiiru dowlaha madaxtooyada Mudane Xasan Macalin Khaliif ayaa uga mahad celiyay danjirayaasha booqashadooda waxa uuna la wadaagay dadaalada dowladda federaalka ee ah xoojinta amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. haatan qodobkii dibadda mas'uuliyiin ka tirsan Faransiiska ayaa sheegay in qof looga shakiyay inuu sabtidii si daran u dhaawacay nin ka tirsan kaniisadda Gareeg oo ku taala magaalada Lyon uu haatan ku jiro gacanta booliska. Nicolas ayaa xiray kaniisadiisa markii 2 xabad looga dhuftay xabadka waxa uuna hadda ku sugan yahay xaalad halis ah. ila wareedyo booliska ah ayaa sidaas sheegay. ujeedka weerarka weli ma cadda laakiin waxa uu yimid kadib markii nin dhalinyaro ah oo reer Tunisia ah uu Khamiistii 3 qof ku dilay gudaha Notre Dame oo ku taal magaalada Nice ee koonfurta dalka Faransiiska. Horaantii Oktoobarna ayadoo macalin taariikhda dhigay lagu gowracay magaalada Paris. Ammaanka guud ahaan Faransiiska ayaa weli ah mid aad loo adkeeyay kadib weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay kaniisadda halka madaxweyne Macron uu isku dayay inuu dejiyo xiisada kala dhaxaysa muslimiinta dalkaasi. Macron ayaa kiciyay mudaharaado ka dhacay dunida muslimiinta kadib dilkii Sami Bati oo ardaydiisa tusay kartoon loola jeedo Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee asagoo sheegay in aysan Faransa weligeed ka tanaasuli doonin sawir qoraaleedka uu sameeyay macalinkaasi. laakiin sabtidii Macron ayaa u hadlay si ka duwan hadalkii hore taasi oo ay ka muuqatay inuu xaaladda dejinayo kadib wareysi uu siiyay telefishinka Al Jazeera. halkaad warkaasi kala socoteen waa Somali News 724 oo xilli kasta idin soo gudbiya wararka la xiriira siyaasadda dalka iyo tan dibaddaba. intii aan war ka lacin ah aan hawada ku kulmi doona sidaas iyo amaana Allah.